مدشوا وعوية عدتيها ونوحر الديري يلكسوا كيساتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورنا أوتنا بديار كقبلنا دين تيدا كقبلنا ذلك يا كقبلنا قول يا قعمة بيوحة وادعينا وجلسينا عما سنتي واحد قلبه كتير دعرته وكحرانية حرام بقلبه كبحده والله لو صيبنا فتنة تدعو الحليم من حيرانا والله بان كل أرتي وعن كل السيبة يا أبو إلهي فتنة متك نكتب بدن أو عقل بدن صور كلكته يا حيران ما هي الإيمان كسين واقتي بدكينا وقتي بال كان سنة حنا دولار الوحر الجي جوجا بكاد تفرقون ويه إلهي سبحانه وتعالى وحن لنا هاي مال أيسن كسر نقول الله نقدره بدكينا مسلمين تأهنا وحويه ما أنت الجهاد بين نص قلي وحنا كسر قلي نمن كاس ديجي نبي حلاليستين حوله نبي حلاليستين dalkeen nibay xalaalaysteen islaamaha nibay xalaalaysteen waxa meesha jooga oo galabta aad loo qosqoslahay ama geedaha loo fadhiyaa maxay yihiin dadnima nagu jirin dadkaan dad u dhamaatay weeye been inii sheegmayno wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xilli waxa jirhaya saacada qiyaamada ay soo dhawaato waxaan lala dagaali doonaa qoom sanan waaweyn قام سنة وأساس سنة بقى في هاي أيام الله رد قارد وانا بيجي والحين اللي لفتني بيجوا ما حد ورسان حين اللي ما كوجي ما هذا كوجي هذا بيجي وحنا سكادر دار منا أنت ناني أنا جهات كأدنه قبله هنا أي آذان أو بيها سوق آذان أو عنده كريان رجعنا وحين ماشى شو أي رجم أيدينه دل على بدي أي كحران والله واحد ماشى شو شاها ساسا نوبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري aniga ma raba nimanka awsaaftooda inaan ku fogaado ujeedada aan meesha iskugu nimid kaliya aan rabaa inaan sheego nimanka waxay tilmaama lahaayeen wax kamid ah la sheegay idina waad ogtihiin ayagoo idin imaan baad ogeydeen waxa weeye haddana waad aragtiin ma ahan urur wadankanaga ku cusube muddo dheer iyo sanawaad ayay gobollo dalka kamid ah ay xukumayeen aad ogtiin caasimadda iyo gobollo badan waxyaalaha naxariis darrada ah ay dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay u geysanayeen dadka meeshan degan ilmahoodii iyo walaalahoodii iyo aabayaashood bay qaraxyadii naxariis darrada ahaa ee xamar ay ku geysanayeen iyo meelo kaleetaba ayaa ku laaday oo aan garanaya halkaan baad joogteen intiinaani waxa ay ka sameeyeen waxay idinla maagan yihiin waad ogtihiin dariskiina say u maamulayaanna har iyo hamin baad maqlaysaan waxaad ogtihiin dhammaantiin mushrikiin iyo murtadiin ila ugu xukumantihiin waxaan idin leeyahay reer wasiileedow dadka kaleeto ee maanta meesha jooga waa dad jihaadka u yimid inay naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda u huraan waxaa lala hadlayaa maantay waa reer wasiileed baa hadda ummaddaani u soo gurmatay wixii meeshaan ka dhacayna waxa lala beegsanayay ee lagu laayay ee dadkoodii iyo dunyadoodii lagu xasuuqay daarahoodii lagu dumiyay la rabay in la dulaysto wareer wasiileed oo haddaan murtadiin isku taqaanaan ama aad mushrikiintihiin sida ayagu ay oranayaan ilaa inta ka cabsataan u tago raali geliyo tawxiidka ha idiin qabteeno ha idin maamuleena u yeerta annagana ha nahodinina waxba ha noo qarinina intaasaa iraahda hadday aad muslim tihiin sidii Soomaali lagu yaqaanay sidaan idin ictiqaadsanahay sida aad tihiin dad muslimiin ilaahay ku xiran haddii aad tihiin ummadaan idinka idin soo gurmatay horkaca inaad guriyihiinii joogtaan baadiye u qaxdaan meelaha iska balashalaysaan dad islaameedna idin difaacaan suuragal ma ahan wixii idinku dhacay bay dadkan xanuujiyay ayadayna u soo gurmadeen diyaar ma u tihiin inaad horkacdaan idinka dalka yaqaana idinka waxa weeye la idin soo gurmaday ma horkacaysaan mise waa la idinka laabtaa ها يا مايا ورمنا هركا عيسانو جهاد كما هذا يسانو لما كان موجه يسانو ميل الرعنا ورقودو دهب كودا محوريانو ما قديانو عيدن كبيها ما كدبا سيدايانو cuntada ma u karinayaan dhaawaca ma qaadayaan
war idinku qaryaha ma qaadanaysaanoo kuwiinna ma la soo baxaysaan ma gadanaysaanoo kuwa aan hayna ma idinku wareejinnaa idinkaa laydinka rabaa inaadna hor kacdaan oo hamiinkii suramada yaqaano idinkaa dheelmaraya nimankaa ma aragteen magaaladan dagaalkii koobaad ay ku soo qaadeen qarax nukleer u dhigma xaabiyaha derbi laga tuuray oo gaalada albaab ka furayayoo nebigaa baneeyey saxaabadii baa bannaysayoo qaraxu uu bannaayay waa baadil ninkaasi hadduu isqarxinayo bannaanku isku soo qarxin lahaa isma soo qarxina meel khatara ayuu islaamka inuu uga faa'iideeyo oo ilaahay ama isagoo nool uu soo celiyo ama uu shahiido ayuu raadinayo khatartaasuu ku booday islaamkiina albaabuu u jabiyey asagana wuu shahiiday idinka waxaan rabnaa qaraxaa bannaan inaad miinada ka dulboodaan inaad qaraxyada ka hoos dustaan inaad ayagoo qoryaha qalcadaha iyo dhufaysyada ay ku jiraan intaad ku firdhataan qoryaha ka maraqsataan diyaar ma u tihiin annagana diyaar baan u nahay waxaan idinka rabnaa akhyaarey warkii hore waa dhammaaday waa la dhaqaaqayaa degaamadii aan ka nimid iyo dhammaan dadka meeshaan waad ogtihiin meel aan laga imaan ma leh dhammaantood horena waa u yimaadeen haddana waa lagu maqan yahay caaway imaanayaan ugu dambayn inta ugu dambaysana berri bay imaanayaan waana la dhaqaaqayaa marka aad hal qof ka dhowrtaan albaab furan iyo qof fadhiya markaan idinka weynaa idinka daba dhaqaaqaynaa haddii kale intaan wareegno ayaan meel kaleeto muslimka ka difaacaynaa aad baad u mahadsantihiin akhyaarey waxaa laydinka rabaa inaad indhaha shidataan hadal haaman lagama buuxshaa la yidhi maanta halkan waxaa loo taagan yahay waxa weeye inaannu iska difaacno cadowga khawaarijta oo damacu ka galay deegaanadan dadkooda diintooda dalkooda xoolahooda gabdhahooda wiilashooda intaas cidda rabta inay maantay boobto oo duulaanka ku ah ayaa maqsadka saaka meeshan loo yimid yahay waxaan rabaa inaan idiin sheego horta sheegayaa xalay waxay ku khudbeeyeen xarar dheere waxay u sheegeen dadkii jooga masaakiinta iyo afduubka ay u haysteen waxay yiraahdeen waxa suurowda islaamka imtixaan inuu ku dhaco laga adkaado haddii aan baxno oo lacala xeel dagaal waa burburnay ka dhowrsanaya xeel dagaal aan gadaal ugu baxno waxay yiraahdeen waxaan idinka baahannahay dadka diin imaanahayo oo sida ayagu hadalka u dhigaan ee mushrikiinta iyo murtadiinta iskugu jira qulubtiina ka ilaashada xal xarar dheer ay kala haayeen soo meeshii ugu dambeysay ma ahan waxaa la rabaa inaan israacino way tabar yihiin wayna liitaan waxaan rabaa dadka baqatinku ku jira inaan hal mid u sheego waa taqaanin ninkii la oran jiray Khalid ibn Walid oo dagaalka islaamka hogaaminayay xilligii saxaabadii rasuulka oo maalin kasta uu duulaan qaday guuleystay oo gaalada baabi'iyay seeftiisana ku leeynahay ciidankana u horeeyay ninkaas asagoo da' ayuu wuxuu ku dhintay gogashiis taa waxay cadeynaysaa inaan dagaal lagu dhimano taa ogaada markuu islaamka xoreeyay oo saxaabadii ay gaareen Khalid cid ah inuu hogaamimayso haddana gogashiisu ku dhintay dardaaran buu ka tagay maanta uu dhimanayay wuxuu yiri waxa u sheegtiin fulayada islaamka oo darbiyada ku jira oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda aan difaacayn inaan lagu dhiman dagaal Khalidna uu ku dhintay gogashiis inta uu sheegay annaguna maanta waxa u sheegaynaa dadka muslimiinta halkan joogo dagaal laguma dhinto fulayada islaamka fulayada reer wasiileed waxa u sheegaynaa dagaal laguma dhintay yaa taariikh xumo la reebi waxa idin sheegayaa annaga khawaarijta la dagaalankeeda waxa bilownay 2007 ilaa saacadan maanta waa nool ayada ku raad joognaa taa ogaada inaan loo dhiman dagaal lala galo halka qof oo ka badbaado ilaahay ka badbaadsiyaana waa qofka sida dhabta ula dirira kuwa darbiyada fadhiyana intay yimaadaan ayay ku laayaan taa ogaada waxaan maanta codsi u nahay waxaad ogaatiin maantay dagaalka kan in loo midaysan yahay oo ay fadhiyaan dadkii hoggaanka iyo siyaasiyiinta ahaa waxaad ogsoontiin inay culumaa u diinkii fadhiyaan war maanta waxaan rabaa dadka halkan jooga reer wasiilaad kaliya maahan waxaa laga yimid bandiiradley waxaa laga yimid saddex xiglo waxaa laga yimid dagaari waxaa laga yimid dhuure wargalo bajeela alguula iyo ceeldibir iyo garawaale intaasaa laga kala yimid intaasi maanta waxay u timid cadowga wasiil dul saaran inay uga gargaarto walaalahood la socda idinkana intaan la eeg reer wasiilada waxaa laydinka rabaa inaad garab istaagtiin hore aad u shaqaysaan hore u socotaan waa maasantii warkaan la yareeyo
warkaa laga daayo baasha halkaasay maraysaa waxaa la rabaa inaad wax ka qaadatiin dadka saabiqiinta oo u dhaqtamay oo u didaalay inay dagaalka galaan inaad garabkooda istaagtiin waxaan rabaa 4 faataxo sacadku iyo Soomaalidu markay isku timaado 4 faataxay maralta siday tahay 4 faataxo waxa la yiraahdaa oo hadii aan la kulin ninkii u shaqeeya cadowga warka siiya u gargaara gaarigiisa ka kireeya nin iyo gabar waa isku mid qofkii u gargaara oo gaarigiisa ka kireeya telefoon ugu hadla war u sheega ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu shab iyo haziimo ku rido ilaahay naftiisa iyo maalkiisa iyo ilmihiisa dhaafiyo ilaahay iimaan ka qaado naartii jahannamo geliyo qofkii sidaa yeelo asmo ilaahay ku fariisiyo ma la ismaqlaaya qoor iyo xerada reemidu ka baqaan qoor iyo xeraba laga galo 4 faataxa mara salliga nabiga ku bilaaba kuna khatima waxaan ahay oday sagaashan jira hore aan haysan wallaahi billaah taala habeenka sabaxa ku saacada in hore u dhaqaaqo ayaa laabta iga jirta waxa weeye reewsileed waana la dhaliilay culimadu waana liisay madaxdu waana liisay ninkaas odaga oo madaxweynaha Cabdigaab ninka leeyahay Cabdi Qaybdeed waxa weeye libaaxa Afrika xagteeda ka yahay sababta uga yahay waxa weeye bilii siyaada oo halkaas fadhiya sareenkii hadduu geeduhu saari jiray waaye sanatayn hadduu qado oo qoriga sargaaliya hadduu saxdan dhiraheeda asagoo sablayna qabin hadduu galabta soo loobo hadduu reerageedii arkay guuta ka ilaalso galayuu safiidkii hadduu soo dhakada sheeca isha lagu culle daymada hadduu goonayda buuro feeraha kurkoodiyo hadduu saabka raago gari la xil moodiyo haddii geeri kugu dhaco gabti bahalka weeye haddaad wada geliyootid inuu reerka kurka ugu jiro soo la garan maayo midda aan rabay waxa weeye markaad aragtiin Cabdi Qaybdeed iyo ciidankiisa inaad soo xaadirtiin oo nima fiican noqotiin haddana ilaahay waxaan ka baryahayaa intaas falligooda wajigooda ilaahay kuwaas naga adkaysi ilaahay meel darahana dhig ilaahay meel darahana dhig ilaahay meel daran dhig ayaga ilaahay meel daran dhig ilaahay meel daran dhig ilaahay meel ceebaad dhig kuwaas waa dhibin ilaahay hadhigo kuwaas ilaahay waa dhibin hadhigo wixii noo shaqeeya oo annaga ciidan iyo sharafana ilaahay madaxda haraajiyo ilaahay madaxda haraajiyo haday ciidan yihiin sharafay leeyihiin haday madax yihiin sharafay leeyihiin haday culimo yihiin sharafay leeyihiin waxay u soo duuleen meeshaan u yimaadeen nimanka ugu filka hay yimaadeen qoryaha soo qaateen aan tagun waxaan leeyahay dhalinyaradu ha istaagto meeshaas dukaan furan yaa lagu arag hadii maqaayad furan yaa lagu arag halkaas aan ku dhaqaaqon meeshay naga jiraan waan dhaqaan godka u horeeyana galahayay halay raac intaasaan leeyahay ilaahayna hana guuleeyo falguulla Allah naga dhigo hadii la yiraahdo wisiilina fadhiga ka kacdo waa run faataxada wixii loo maray aan ku duceynayaa ilaahay waxaan su'aalaynaa rasuulka barakadiisa su'aalaynaa nin allaala ninka u shaqeeya nimankaas oo ayaga u shaqeeya ilaahay subxaanahu wa ta'aala aqab adduunyo aakhirada ilaahay ku rido sidaasaan faataxada u marayna ninkii u shaqeeya ama nin ha ahaado ama naaga ahaado ninkii u shaqeeya ilaahay waxaan su'aalaynaa aafad degdega ilaahay ku rido muslimka calaamo muslimku aqoonsadan ilaahay ka soo saaro xoolo kama hayno maal kama hayno dhul kama hayno ilaahu kuwaas naga qabo ilaahu naga qabo ilaahu intaan inta dhashan xaf ilaahu culmada iyo odayaasha iyo ahludiinka ilaahu madaxooda raaj ilaahu la jir ilaahu wax la qabo ilaahu gargaar ilaahu cadawga ka qabo ilaahu cadawga naga qabo ilaahu qaadir naga qabo nimayahow baraaruga dagaal iska bixidiidi nimayahow babtaa lagu hayaa niman bukoonayn warboojaga sidiisi raggii loo biraynahay nimayahow baktaa ka ro xoolaha baraqsanaysaan albaqriya shahiidku xabiya baraha yaasiinka baaqiga ilaa weeshadoo baqa ka dheeraada war baraarana u soo baxa ilaah boqorka weeyaan baaqiga ilaa weeshadoo baqa ka dheeraada baraarana u soo baxa ilaah boqorka weeyaan إله آمين آمين إله ناقب إله نوقرقان إله عذاب نقب إله نقب إله مدحل اللجر إله عينك اللجر إله ربي يوم نب يشداء يلور يقرع إله كنور إله يقرب كذا كبح إله يبلايك وصلك إله يدب علي إله قادر أبو راي إله كواس نقحشو اللهم صل على محمد إله ناقب
annagoo gabdhaha galmudug ah waxaan diyaar u nahay inaan jahaadno cadowga qawaariijta waa la jahaadaynaa naf iyo maal waa ku huraynaa allahu akbar reewisleeda diyaar ma u nahay inaan jahaadno mase beenbeen baa isku sheegaynaa rag iyo dumar haddaan naha meesha cabdi qaybdiid noogu weyn yahay oo socdo saqiir iyo kabiir waxaan doonaynaa inaan jahaadno ilaahay dartiis baa u jahaadaynaa ka baqi mayno waa ragoo kale gabdhaha soo shidaaliyey gabdhaha wax soo siiyey gabdhaha gurmadka u soo dhiibay annaguna gabdhaha galmudug haddaanu nahay hiil iyo hoo raggaanna waa la garab taagannahay insha allah gacanta saraysana ilaahay waa naga dhigayaa intayada gurmadka u timidna waxay noo tahay dhiirigelin dadkii aan u nin oo dhibaatadii dhacday aan rabnay inaan gacan ka siino maanta bannaankii u soo baxeen wayna soo jidaageen waxaan u qaadanaya warkaa la sheegay inuu daacad yahay inuu lilaahi yahay baan u qaadanaynaa hal kelmaan rabaa oo keliya intii iga horraysay baa wixii war loo baahnaa waa la sheegay culummada warkeeda uu ku dhan yahay bay warkooda ku dhan yihiin waxaan rabaa dadka cadowgu ma guulaysan karo hadduusan adiga qayb ka mida uusan lahayn ma guulaysan karo hadduusan dadku ku dhex lahayn waxaan soo jeedinayaa qof kasta oo rag iyo dumar ah ee xiriir la yeesha ee taleefonka ka qabta iska taa inuu la hadle taleefon ka qabta ee war u geeya ee lagu ogaado inuu jaajuus yahay waxa weeye waxay ciidamadu u fasaxan yihiin waa la xirayaa wax alla wuxuu hanti iyo uu leeyahay maaliyadna waa laga dhacayaa ninkaasi wuxuu ka xun yahay ninka cadowga oo shabaabka oo xabadda soo ridaya ninkaanaa ka daran ninkii marka arrintaa ayadaa gabdhaha waxaan ka codsanayaa gabadhii ay ku arkaan oo xiriir la leh ama ha qabeen ama saaxiib ha la ahaadeen ama qaraaba ha la noqdeen gabadhii lagu arko ka qabanaysa iyo wiilkii la arko oo ka qabanaya iyo odagii la arko oo xiriir la leh waxaan idinku boogaadinayaa cadowga marka kaa ha aadin kaas ha aadaysa midkaas kugu dhex jira oo warka siinaya kanaa dagaalka lagu horraysiinaya kanaa la xiraya kanaa la qabanaya kanaa maal iyo naf asagana waa la xiraya wuxuu haysana waa laga dhacaya waxaa la rabaa haddiina saas yeeli ma dhammaanayo nin xoogaaga yarkaa dhandhanaanka oo laydiin soo tuuro oo laleeyahay inta iigu soo waran waxaas ilaahay ha naga korin waxaan idin leenahay allah idin guuleeyo allah idin guuleeyo allah idin guuleeyo maanta go'aanku waxay tahay deegaankan reer wasiireed ama reer galmudug waxa weeye waxay u jeesteen dagaal is-xorayn ah khawaarijta in la iska xoreeyo war ma nagu hogaaminaysaan annaguna waa idinku dabagelaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madasha gacnaha kor u taashu waxa weeye waa noo xaradeeray meel ka sokaysaa allahu akbar allahu akbar مروا علي ميكروفون كقبصه